تقبكرا إنا كيسي ملعمو حلك ما تقبكرا مسودا على ضاي وامرك ما دونتي إنا كيسي ملعمو حلك ما تقبكرا إنا كيسي ملعمو حلك ما تقبكرا مسودا على ضاي وامرك ما دونتي شرفتا رجي سو شقيي رجي آد وقت بدن قليي سو دوينتيدا ومتقانا الأضياء الأغيارة sidoo kale waxa maxal ilaahay ku soo gaarsiiyay magaaladan nabadna soo keenay wax badan ma rabo inaan mataqaan halkan ka yiraahdo oo insha Allah waxaan rabaa muddo aan dheerayn inaan shir jaayid qabto shirkaas jaayid oo la hadlayo aragtidayda ku aadan galmudug iyo process ka socda iyo waxaan ka aaminsanahay inaan ka hor dhaco ma rabo inaan ku degdegana ma rabo waxaan rabaa inaan u koor galo aan dadka waraysto xaaladda hadda socotana aan si rasmi ah u ogaado markaas wixii aniga ila gudboona inaan go'aankaas qaato hadalkii la gudboona markaas aan jeediyo halkan intii waxaan ugu nimid haween mahadnaq aniga mahadnaqayo taageeradiina ay la garab taagantiin mar walba waxaan kala rabaa inaad xasuusino galmudug kulligeen waxaan nahay dadkii ehelka u ahaa ayaan daro galmudug sidii loo asaasay ilaa hadda waa hana qaadi laadahay sababta waxaan qaadi laadana waa cadaalad daro cadaalad daradana waxay ka imaanaysaa dhowr meelood haddii maxay hal booliis mid xalaal ma dhasho haddii processka xalaal lagu bilaabana wax xalaal oo nadiif ah oo dadku ay ogolaadeen rabaan baa ka imaanaya haddii xaaraan ku bilaabatana ma hana qaadayso sidii hore u dhacday anna waxaan uga baahan yahay isku dhiirigelino isku boorino xildhibaanadana waa ehelkeena waa dadkeena in lala hadlo qofkii fursad u leh in siyaasadda isla qabsiga iyo khilaafaadka meel iska dhigo marka hore la hormariyo muhiimadda la siiyo si galmudug loo dhisi lahaa sababtoo ah galmudug waxa u baahan inay ka faa'iidaystaan maamulkeeda oo annaga nooga baahi badan waa dadka maatada ah oo liidka aruurta dadka ku nool galmudug oo ayaga maamulka iyo meel kale لما هاتش